زيتون oo ku magac dheer Zeza Baby ayaa maanta la soo daayay kadib markii 2 maalmood ka hor lagu xiray xabsi ku yaala xaafadda Islii waddanka Kenya. Waxaana la sheegay inta aanan xabsiga geyn ka hor in la shirqoolay. Shirqoolkaas waxa uu degay qof xiriir u soo bandhigtay kadibna ay ka diiday. Zaytoon waxay in badan caan ka tahay aaladda TikTok. Laga yaabo qofkaas inuu ka soo raacay aaladda TikTok kadibna uu xiriir u soo bandhigtay iyadana ay ka diiday. waxaana la isku khilaafay qofkaas ma Soomaali buu ahaa mase Kenyaati, laakiin boqolkiiba boqol waxay u badan tahay inuu ahaa Kenyaati. Zeza Baby hooyadeed ayaa sharaxday qaabka loo afduubtay. Ugu horeyn aan soo daawano muuqaalkaas. La joogaan sida idin sheegi rababo dib ayaa jiro dib aad iyo aad u weyn. Zeza saddex habeen ay xiran tahay. Wixii lagu xirana hooyo ayaa weydiinayna. Hooyo gabadhan maxaa lagu xiray? hooyo gabadheeda inaa shirqoolay. wallaahi nin baa u imaaday meesha ganacsigeeda ugu imaaday markaasuu gaari soo istaajay iyadoo taagan markaasuu dafay gaarigii la galay ka hor maxaa dhex maray intuu ninka naag oo gabadha u dafin maxaa dhex maray ka hor xiriir uu ka rabay xiriirkii ka diiday sida ii sheeg xiriirkii ka diiday markaasuu intaasoo habeen uu bariyu soo caynayay usoo qoqorayay way sheegaysa iska daan ku iri marka dambe lagu imaaday gaari baa la furay gabadha lagu jiikanay iyadoo goobteeda shaqada joogto meesha shaqada joogto 5 buu ku jiray ilaa 8 ka qaylinaysa telefoonkiya ka dhumay wixii dhan ka hawaabay dirci uu ku jeexay gabadhii xarbi uu la galay kii darawalkii uu la cararay بدي كوستاجين لاين كسان يلا وين كلا صح لبني نهاية لبني نهاية يا فيديو قاعد تيك توك نو كارك يقول لينك لبدا يقول قراء عيو وقاري اللي بيجينا تيك توك بس قاري مركو إلى عرين إلى 8 مركو دافية أو دكيا كده بدي المركز مركو ماشي تابنين ويلش على تابنين ويلش ما كده بقولين ماشي يلا وده بتجي تألفك ولا قصة ولا بدي جام وقال هرت ميستاجلين جام تحديث مركز لو قصة فايدة لو قصة قبتي كيك لو عري صومالي يجرر بويتو من كيك لا لقبت مركز كي دلور كي لقبت كي دلور كي لقبت كيك لو عري صح ماشي يا مركان ونينك اللي وصل دلي جرير الصومالي هذا توك دي لا وحن كعيد منك يا ماشي لو قراعي ماشي الجاري يا بوليس كسو جيدي أيضنا إلى سوبر بالي كي كان سيدي ماشي لو قلت مي حتى مو اوغايده markii dambe wuxuu dhahay gabadhii way tuntay oo shirqool bay igu sameysay oo daawo keensaday gabadhii waxba ka filanaynin baa la qabtay صح guriga laga soo gabadha hadda meeqa habeen banaanka inta taagnayna laga soo gabadha meeqa saddex habeen ay xiran tahay صح marka maxaad leedahay Soomaalida ma daawanayso gabadheedii hadda kootini baa la saaray kootiniga waxay dhaheen gabadhan dad ay dishay sidaan arkayno oo marka waxaan rabaa nin askari ninkan keensaday ninka askariga marka afgan gabadhiida sameeyay anaga waxa soo filamana danaynayna mana filanaynin gabadheed waxa la yiri kootini la saaray 1 milyan oo lacag ama log buu la rabaa صح أنا ما أولي ومساكين بناقص كشغل سكان أحد. قبل إذا حالة. سيدا أكتهم بس حاوي زي ولي قد بهوده وشقين جرتي بربرة وفدين جرتي يا بربرة وفدين جرتي ما مدنا ما محنوصن هو هي اللي واعي ما أودو سكرة قبتها ما أودو العقد صودن نينكي Soomaaliga أهانا ما أنت نحو حب وشيء جنايا لعبوا بثيري سي معركتي قبل بس جالك وجيفتو marka maamadan maanta garab ay ninkaga baahan tahay ani waliga hortiin ma soo istaagin garabna eedin ma weydiisanin laakiin maamada hooyadeena maanta gabadheeda xabsi ku jirta si xaq darana waa loo haystaa meeshan aan joognana wax walba waa lacag maamadana sida aragtiin waa maamo barbara ilmaheeda qoodka uga raadsato marka insha Allah alxamdulillah ugu dambeyntii ayadoo dib aan soo gaarin ayaa la soo daayay waxa banaanka soo buux dhaafiyay taageeraha Zeza Baby ayagoo halkaas ka sameeyay banaanbax la doonayo in lagu soo daayo Zeza Baby lacagta la sheegay oo 1 milyan ahayd lama bixin laakiin waxa lagu xaliyay heshiis ay sameeyeen odayaasha waxayna ku xaliyeen in qofkaasi ay daaweeyaan insha Allah Zeza Baby waa la soo fasaxay iyadoo aad u faraxsan waxaana banaanka buux dhaafiyay taageeraheeda waxaan halkan fariin ugu dirayaa gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool waddankaasi Kenya waxa ku soo batay waddan Kenya afduubka loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed ugu dambeyntii Zeza Baby ayaa taageereed halkaas ugu mahad celisay iyadoo sheegtay in abaalka ay u sameeyeen aysan weligeed ilaawi doonin 3 2 1 stop
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you وما سنتين قبل ولا شيء حرية ده إنا أدو دمان تبنان ككنتان ووحن آدي وفرح سنة هاي دمان تلوينها أصحاب تمشي شوفتو بقول يتمنى فرد قرآن كان هو مع النقنا وما سنتين فرحة كركينا هاتو آدي ولي مع النقنا سلام شكرا. Assalamualaikum guys, maanta idinka ay soo bixiseen, thank you so much. Manili iyo Ndlowi Doni. Waa mahadsantihiin. Idinka dhan waa mahadsantihiin.